عبارة لحدي أرورنimo iyo qadar 30 daqiiqo waqtiga dalkan Turkiga ayaa labada ragcay ee salaada Ciidul Fidriga waxa lagu oogay masjidka Ulus ee ku yaala xaafadda Ulus ee magaalada Ankara ee caasimadda wadankan Turkiga kumanaan ka mid ah muslimiinta dalkan Turkiga oo ay Soomaalidu qayb ka tahay ayaa salaada Ciidda ka soo qayb galay qaar ka mid ah Soomaalida magaalada Ankara ee caasimadda wadankan Turkiga oo la hadlay warbaahinta qaranka ayaa isugu hambaliyay eraya ay ka mid yihiin ciid wanaagsan iyo sidoo kale hambaliyada iyo damaashaadka farxadda ciidda waxaana hadalladooda ka mid ahaa sida tan dhammaan ummadda muslimiinta qaasatan dadka Soomaaliyeed waxaan leeyahay ciid wanaagsan kullu caam wa antum bikhair maanta waxa ku ciidnay magaalada Ankara saa u wada jeedaan mashxarada farxadda meeshan ka socota waa wax Soomaalidii maanta na dareensiisay inaad joogno magaalada Muqdisho ama dhammaan dhulalka Soomaaliyeed ciid si fiican ah u ciidin magaalada Ankara dhammaan meeshan waxaan ugu hambalyeeynaa ummadda muslimiinta ah meel walba ay joogaan waxaan leeyahay ciid mubaarak kullu caam wa antum bikhair waxaan salaamayaa family ka dhamaantood ciid wanaagsan dhammaan muslimiinta ee ku dhaqan dalka wadanka Turkiga gaar ahaan Ankara maanta u jeeda meel walba si fiican loo ciideeyaa kullu caam wa antum bikhair عمر عبد حسن عمر عاقل warbaahinta qaranka magaalada Ankara dalka Turkiga